bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meel walba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan ciraaq qodobadaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu rabbi idmana waxaa ka mid ah doonista james madison kubadsameeyaha lasta oo suuqa ku sii xoogaysanaysa carlo angelotti oo meesha ka saaray richarlison inuu u dhaqaaqayo kooxda manchester united arsenal oo raadinaysa xidiga lagu magacaabo dayot kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ku taamaysa isdhaafsiga Gareth Bale iyo Pogba tababaraha kooxda Inter Milan Antonio Conte oo raadinaya Chelsea daafaceeda dhanka bidix Marcos Alonso hore kaga yimid horyaalka waddanka Talyaaniga Granit Xhaka oo ka careysan tababaraha cusub ee naadiga Arsenal Mikel Arteta Chilwell oo iska fogaya January inuu ka mid noqonayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea qodobadaas kaga bogan doontaan barnaamijka waana mar kale iyo ciyaaraha aynu ku bilaawna dhinaca Manchester United waxay raadinaysaa James Madison Manchester United ayaan weli ka harin doonista xidiga kubad sameeyaha kooxda Leicester James Madison iyada ayaa hadda hormuudka ah dhowr kooxood oo kala duwan oo horkacaya doonista laacibkan Red Devils macalinkeeda Ole Gunnar Solskjaer ayaa adeegsada hab ciyaareedka 4-2-3 wuxuu u baahan yahay inuu ku soo darsado ciyaaryahankan Madison Jesse Lingard Andres Pereira iyo Juan Mata ayaa iyagu markaasi ku hungoobay bandhigii la filayay garoonka dhexdiisa ay ka sameeyaan wargeeska Evening Standard ayaa ogaaday Madison in si weyn loola xiriirinayo tagista garoonka Old Trafford United ayaa raadinaysay kubad sameeyahan muddo kooxda 20 mar ee historialka waddanka Ingiriiska 80 milyan oo pound ayaa la rumaysan yahay inay ku gabagabeyn karto la seexashada laacibkan Solskjaer ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa kooxda Red Bull waryahankeeda Erling Haaland Juventus ayaana qarka u saaran ku guuleysiga saxiixa xidigan 19 sano jirka ah ee kooxda ka tirsan dhanka kale tan Carlo Ancelotti ayaa meesha ka saaray Richarlison inuu u jihaysan yahay dhinaca Manchester United tababaraha cusub ee kooxda Everton Carlo Ancelotti ayaa beeniyay wararka Manchester United la xiriirinaya xidiga gobolka Masset ku sugan ee dhinaca weerarka Richarlison geeska dasan ayaa ogaaday Ancelotti 22 sano jirkan uusan ka diri doonin Goodison Park xidiga uu ku shaqeynayna uu ku jiro qorshihiisa Arsenalna Dayot Upamecano ayay gabagabeynaysaa heshiiskiisa RB Leipzig xidiga dhinaca daafaca uga ciyaara ee Dayot Upamecano ayaa isaga tagaya kooxda bisha January Arsenal ayaana loo badinayaa laacibkan inuu u jeheysanayo naadiga The Gunners lagunaanayso ayaa 22 sano jirkan baadigoob ugu jirtay Tottenham Hotspur iyo Manchester City ayayna noqonaysaa inay ka dulqaaday haddii dhankeeda uu dhamaado daafacan dhexe wargeeska Le Parisien ayaa warinaya kooxda Leipzig in markaa irdaha ay u furayso inay iibisay xidigan reer Faransa bilaabashada sanadka 2020 Upamecano ayaa isagu markaasi seegay ciyaaro ka mid ah xilli ciyaareedkii hore kooxda kadib dhaawac dhanka jilibka oo uu la kulmay 53 milyan oo pound ayaa lagu heli karaa Arsenal ayaa la rumaysan yahay inay aad u xiisanayso 22 sano jirkan reer Faransa David Luiz oo way araga ayay doonaysaa in booskiisa ay ku buuxiso warkuna waxa inta raacinaya William Saliba in adeegiisa ay dib u heli karto naadiga kubadda cagta Arsenal laacibkan ayaa santa Etienne ama lagu siiyay markii laga iibsaday kadib dhaawac uu noqday waxa uu ku qasbanaaday inuu dib ugu soo laabto shaqada kooxda kubadda cagta ee Arsenal daweynta kadib ayaa la filayaa inuu garoomada u soo galo naadiga Gunners Madrid Bale iyo Pogba ayay isdhaafsanayaan iyada iyo Manchester United Madrid ayaa diyaar u ah bixinta Gareth Bale oo loo jeeday dhinaca Manchester United si ay u soo qaato Paul Pogba Devils ayaa laga yaabaa arrintan inay aad uga cagajidi doonto Bale ayaa lala xiriirinayay ka tagista Santiago Bernabeu tan iyo soo laabashadii Zinedine Zidane Pogba ayaa isna xaqiijiyay inuu ka tagayo kooxda United horena waxa uu sheegay kooxdiisa riyada inay tahay Real Madrid warsida lagu magacaabay Eldesmarco ayaa ogaaday Madrid inay helayso dalab dhinaca kooxda Red Devils oo ku saabsan xidiga Bale labada kooxood ayaa fursadahan isaga faa'iideysanaya maxaa yeelay Madrid waxay u baahan tahay Pogba Unitedna waxay u baahan tahay ciyaartoy dhinaca weerarka sida Bale oo kale 2018 ayaa markaasi la rumaysan yahay sidii looga soo laabtay in dhaawacyo uu qabay ciyaartoyga Bale taasina ay ku keeni karto saameyn
kamid noqoshada kooxda Manchester United sidaas oo kale Pogba ayaa isna kamid ah xidigii 2018 ku guuleystay koobka dunida ciyaaraha ugu badan ee kooxda United dhaawac dhanka anqawga ayuu ku seegayay xilli ciyaareedkan xidigan qadka dhexe muddo ayuu ku sugnaa Old Trafford markii uu ka soo laabtay Juventus kadibna kooxdu waxay u arkaysay hogaamiyaha ugu quman ciyaartoyda waqtigan ay haysato laacibka waxa kaloo la xiriirinayaa marka laga yimaado doonista kooxda Real Madrid naadiga Juventus iyana ka dhisan wadanka Talyaaniga oo badi goob ugu jirta dhinaca kalena Inter Milan tababarada Antonio Conte ayaa raadinaya Chelsea xidigeeda Marcos Alonso Inter Milan hogaamiyaheeda waqtigan Antonio Conte ayaa bartilmaameed ka dhiganaya daafaca kooxda Chelsea ee Marcos Alonso inta lagu guda jiray January Alonso ayaan ciyaaraan badnayn oo Chelsea ku soo bilowday dhanka bidixda daafaca Lampard waxa uu ka doorbidayaa Vikaya Tomori ninka lagu magacaabo warsidaha Gazzetta dello Sport ayaa ogaaday Conte in markaa uu rabo inuu dib ula midoobo laacibka dhanka bidixda daafaca Marcos Alonso 28 sano jirkan maadaama uu joogto ka in Blues inuu ka tagay ayuu diyaar u yahay macallinkii ay ka wada shaqeeyeen shaqada kooxda Chelsea ayaana laga yaabaa in markaasi uu la midoobo naadiga Inter ayaa ugu yaraan ama ku raadinaysa haddii laga iibin waayo xidiga lagu magacaabo Marcos Alonso wararkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka tan kulankeena dambe nabadgelyo